إن شاء الله دهفورك بوغن دربي غدال ku qoran weeyo waxaan isku imaanay oo Dr. Warfa uu qoray marka insha Allah waxaan sameynaynaa inteena programka ayna guda gelin waxaan u yeerinaynaa oo ku bilaabaynaa sida ay caadada tahay ama dhaqankeena uu yahay nafaran inaanu quraanka iyo wacyi aanu ku bilaabano wax kasta oo wanaag ah oo la isku imaanayo ducana lagu khatimi doono insha Allah waxaan u yeerayaa quraan iyo wacdi noogu furi doono Sheekh Maxamuud Dulyatayn Sheekh hadaad fadhid soo fududay insha Allah waxa kaliya waqtiga aan lahayn quraankii wacdiga ka jiro marka faa'iideyso halkaana markooda suxuuran doona insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على حبيب المصطفى وعلى آله الوفاء أما بعد ولا ليال ساد ولا سعتان با quraanka waxa ka buuxa faa'iidooyin badan hadda markaan soo istaagi rabay baan waxaan qoraalka iyo muhiimadiisa iyo akhriska iyo cilmiga intaba meelan ka doorto aan xataa ka akhriyo baan xoga ku wareeray nuun wal qalam hada akhriso way ka hadlaysaa qoraalka iyo faa'iidadiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka bilaabay xaraf kamida xuruufta hijaiga macnihiisa uu kala jeeda asaga garanaya laakiin qoraalka dhan ba xaraf buu ka bilowdaa xaraf ama 26 ha noqoto ama 28 ha noqoto haba luqadda wax ku qorayso waa xuruuf la isku keenay intaas oo soo noqotay baa buug laga dhigaa Soomaa intaas aba ayada waxaan kaloo isweydiiyay markuu nuun aad tiraahdo quraanka akhrinayso ilaahay wuxuu ku dhaartay qalin wal qalami qalinkan ku dhaartay iyo wama yasturuna waxa dadku waxa la qoro malaa'iktu qorto hatta dadku qoraan wax walba la qoro sadarada dhexdooda ku jiro in between the lines muhiimadda ay leeyihiin iyo wanaaga ay leeyihiin iyo cilmiga ku duwan ee ku jiro daraadeed buu ilaahay ugu dhaartay qoraalka iyo qalinkii wax ku qoray dhinaca kale waxaan isweydiinayay iqra hada akhriso ayadana waa munaasab iqra bismi rabbika alladhi khalaq qoraalna waxa iyo akhrinba waxa sharaf ugu filan inuu aayadii ugu horeyso ilaahay quraanka uu soo dajiyayba akhris iyo qalin ay ka hadlayso ayadana haddana waxaan isiri okay waa cilmi isku soo duuduub qoraal iyo akhris marka isku soo duuduubtid waa cilmi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ma akhris ayadana marka meesha quraanka fiirisaba in badan oo kamida waa munaasab intaasna anaga ayuu ilaahay inala hadlayaa oo inoo soo jeedinaya oo haba si wax noogu sheegaya ama si kale si aan u fakarno u waansanno wax u baranno wax u ogaano annaga isugu anfacno dad kale oo badanna ku anfacno waxa maantay aan ognahay iyo wixii la soo dhaafayna aan qorno si ay dad kale oo soo socdo adduunka u soo socdo oo anagu ka tagi doono iyo kuwa la midaba ay nooga dhaxlaan raadkeeni ay wax uga dhaxlaan ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu dadka abuuray
ayuu haddana u sheegaya wuxuu leeyahay wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum calooshii hooyooyinkiin waxaa idinka soo saaray alle goorma idinkoo sidee ah laa taclamuuna shay-an waxaa ogtihiin iyo waxaad garanayseenba ma jirin waxaa qortaana iska joogtay markaa kadib ilaahay wuxuu ku bilaabay dareemayaasha dadka ay wax ku ogaadaan waxna ku dareemaan wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata samca ugu horeeyo ilaahay wuxuu idin yeelay maqal wax ku maqashaan dhago kadibna aragti iyo indha wax ku aragtaan iyo waalaf'idata qalbi iyo caqli wax ku ogaataan caqligana wuxuu ka imaan karaa un markaa wax maqasho waxna aragto unba wax ogaan kartaa wax badanna ma aha awood keliya ee waa ogaan waxyaalaha qaarkood haddaa si fiican u fiiriso wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacalakum tashkuruun marka allaha noocaas inaan ku xamdi naqno oo ku shukrino aanna ogaano goortaan dhalanay adduunyadan kusoo biirnay inaanan waxba ogeyn haddana buug walba akhri majallad walba akhri wax walba qor waxa aad qorto ayaa tahay waxa aad akhrisaa tahay waxaasaana laga faa'iidi doonaa khayr allaha siiyo walaalkeen oo u qoray annaga iyo dad kaloo soo socdo mustaqbalkaba raad ay dhaxli doonaan iyo weliba goob muhiim ah oo sheekooyin badan aan laga qorin wax badanna laga soo saarin wax badan oo dhibaatooyin iyo culaysyo aan ay ku badnaayeen asoo xoogga ku saarayo si ay dadka soo socdana kuwa joogana ugu baraarugaan kuwa soo socdana ay u dhaxlaan aad ay u mahadsantihiin waan ka xumahay in la ii yeeray culummadii iyo weliba qaybo macallimiintayda ka mid oo meesha fadhido ayagoo joogo in aan la ii yeeray waa ka xumahay waa isku day inaan warwareego markii dambe aan ka cududaarto way ii socon weyday marka kulligiin raalli ahaada waana mahadsantihiin وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم